toban ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa dhamaystirkooda maanta soo saaray xeerka madaxweyne lambar eber 13 November 2019 kuna saabsan magacaabista wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markuu arkay dastuurka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisa 2 iyo qodobkiisa 54aad farqadiisa 1 markuu la tashaday baarlamaanka dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya markuu tixgeliyay soo jeedinta baarlamaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku saabsan baahida loo qabo wasiiro aqoon iyo karti ku salaysan markuu garowsaday howlaha baaxadda weyn ee horyaala shacabka Koonfur Galbeed ka sugayaan xukuumadda markuu xeeriyay magacaabida dhamaystirka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wasiirada kow Maxamed Xuseen Xasan John wasaaradda garsoorka, Aadan Xasan Maxamed wasaaradda dastuurka, Faa'isa Shariif Nuur Maxamed wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqda insaanka, Maxamed Cismaan Xaaji Cadow wasaaradda caafimaadka, Xasan Cabdi Maxamed wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada, Maxamed Cabdiraxiin Nuur wasaaradda macdanta iyo batroolka, Mukhtaar Maxamed Guuleed wasaaradda xanaanada xoolaha, Maxamed Nuur Cadde wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada, Xasan Xuseen Maxamed wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka, Imaan Cali Cabdi wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, Cumar Axmed Aadan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, Cabdinaasir Cabdi Caruush wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka, Cabdi Maxamed Cali wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ibraahim wasaaradda awqaafta iyo diinta, waa Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ibraahim Baardheere wasaaradda awqaafta iyo diinta, Cali Macalin Aadan Cumar wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta. Wasiirada ku-xigeenada kow Nimco Nuur Cali wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga, wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga maaliyadda, wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga, Cabdiladhiif Maxamed Cabdulaahi wasaaradda maaliyadda, Maxamed Ciise wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose, Isaaq Boorow Isaaq wasaaradda amniga gudaha, Xasan Sayid Cali Cadow wasaaradda beeraha iyo waraabka, Shamso Sheekh Ibraahim wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, Jibriil Maxamuud Aadan wasaaradda waxbarashada, Cabdulle Cabdi wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, Maxamed Cali Calow Gaani wasaaradda howlaha guud iyo dib u dejinta, Cabdisalaan Cabdulaahi Baasey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, Shamsa Maxamed Yarow wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqda insaanka, Cabdulaahi Warsame Dhoofaan wasaaradda dastuurka, Maxamed Aadan Maxamed wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada, Maxamed Aadan Maxamed wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada, Cismaan Cabdi Muuse wasaaradda caafimaadka, Aadan Maxamed Cusmaan wasaaradda macdanta iyo batroolka, Yuusuf Aadan Gurtaale wasaaradda xanaanada xoolaha, Cabdixakiin Faarax Cumar wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada, Cabdisalaan Cabdulaahi Yalaxow
wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka cabdulaahi isaaq maxamed wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha cabdiwahaab cabdulaahi maxamuud wasaaradda garsoorka maxamed cali maxamed shuute wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabduqaadir sheekh cali barako wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka abba aaw suufi wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha bare aadan cabdi wasaaradda awqaafta iyo diinta ibraahim macalin aadan wasaaradda bay'ada iyo dastuurka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya wuuna saxiixay.